dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay shaqadii ka joojisay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya kadib war qoraal ah oo soo saaray maalintii shalay kaas oo kaga hadlay rabshadihii ka dhacay magaalada Baydhabo iyo sidoo kale in dowladda Soomaaliya ay cadeyso qaabkii loo soo xiray Muqtaar Roobow Abu Mansuur haatan waxay stuudiyaha ay kula sugan garyaqaan Xuseen Cabdi Malab oo markaasi baraka ah kulliyad ku taala magaalada London ee dalka UK garyaqaan soo dhaw marka hore sharciga caalamiga muxuu ka qabaa talaabadan ay qaaday dowladda federaalka ee shaqada uga joojisay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim sharciga caalamiga ah marka la eego qodobka 9aad oo Vienna Convention on Diplomatic Relations oo wadamada caalamka ay ku shireen ayaga oo markan ka hadlay arrimaha xadgudubka ka imaan kara dadka diblomaasiyada wadamada imaanaya sida loola tacaal lahaa ay qodobka 9aad wuxuu fasaxayaa wadanka hadii uu ka shakisan yahay shakhsi oo diblomaasiya wadan shaqo u imaaday hadii xadgudub uu sameeyay ama shaki uu imaado qodobka 9aad ayaa oo la isku raacay in dawladdaas ay ayadoon faahfaahin bixinin oo sheegin sababta u burinaysa ay loo fasaxay qofkaas in si degdeg ah wadanka ay uga saarto ayadoo ku dhawaaqaysa waxa loo yaqaan persona non grata qof aan mar damba wadanka in loo ogolaanay inuu si joogo si degdegna uga baxa sababtuma marka qodobka 9aad oo article 9 oo Vienna Conventions on Diplomatic Relations ay u fasaxay dawlad walba way sameyn kartaa hadii ay ayada aragto danaheeda qaas danaheeda guud iyo dastuurkeeda meel looga dhaca waxa way wadan walba oo u fasaxayeen caalamka ayaana ku shiri oo isu fasaxay waxyaalaha inay dhacaan ma jiraan dawlado kale oo talaabada noocan oo kale hore u qaaday walaal dawlado badan ayaa sameeyay ugu yaraan 60 jeer ay caalamka ka dhacday in nin siyaasi ah ama diblomaasi ah oo wadan imaaday in dawladii markay u bogi waysa ay si degdeg ah ugu dhawaaqdo persona non grata alaashan wadanka lagama jeclo ama lagama rabo waay wadanka ka dhaxbax sababtuma ay ku dhawaaqday wadanka ugu dambeeyay wuxuu ahaa safiirka Canada u fadhiyay Sacuudiga markuu dad mudaharaad sameeyeen uu ka hadlay u dhahay mudaharaadaas dadkaas waxyaalo noocaas ku hadlay Sacuudiga dawladda ayaa ku tiri Dennis Harrock loo yaqaan maxayna ahayd taariikh 5 bish 8 2016 sanadka dhamaaday oo asaga lagu dhawaaqay sida Soomaaliya ugu dhawaaqday inuu Soomaaliya ka baxo Sacuudiga wadanka safiirka oo u fadhiya Venezuela Todd Robinson loo yaqaan taariikh 22 bishii shanaad sanadkii tagay ayaa laga Venezuela loo qabtay in mataqaana lagu dhawaaqay qodobka Soomaaliya ku dhawaaqday persona non grata inuu ka baxo sababtuma ugu yaraan 60 wadan ama 60 jeer ayaa saan marka laga soo bilaabo 1932 1932 ilaa ay maanta 60 jeer ayaa lagu dhawaaqay qodobkan sababtuma wadan walba markuu dareemo interestkiisa qaas ama jiritaanka wadankaas ama madax banaanida wadankaas ama dastuurkii in meel loogu dhaca ayadoon cidna u abiilin ay qodobkan lagu dhawaaqaa wax caadi ah oo caalamka dhaca saameyn intee leeg ayaa ka dhalan karta khilaafkan soo kala dhaxgalay dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay horta waa arin oo United Nations nafteeda ay meel dhigtay oo qodob wadanka u fasaxay in ay ku dhawaaq karto qofka aysan rabin inuu ay wadanka inooga bax waa wax caalamku ogol yahay United Nations kana ay qodobo ka soo saartay soo wadan haduu ku dhawaaqa wax la yaab ah ma aha United Nations kana wax oo dib ah oo Soomaaliya ama United Nations dhaxdooda ka imaan doono ama kuba deeq Soomaaliya deeqsiya waxyaalahan waxba u dhimay sababta nidaamka kala protocol oo mataqaana United Nations ka Soomaaliya inay taakulayaan nidaamka ka yaala qodobkan waa qodob Soomaaliya xaq ay u leedahay inay ku dhawaaq karto marka wax isku dhaca oo meesha ka imaanaya ma jirto waxyaalaha caalam ka dhaca in fact sida sharciga saameyn ay u yeelan karto malaha sababtuma dawladda حق أي كذا سميسي ما دام أيده دفاعي سجلتان كصومالي لماذا إيو دستور كصومالي إيه مدح بناني ده ما كأن ما كلت شنيسة سوتها مدحوينا وياي صومالي دولة محي دولة وتهاي شعبكي يجريتان كصومالي ده صوماليا هدي مركا قضب كاس يو أنت بقى أوفى صحدي أين خف شخصي أكشكيين أين دهين ودك إنه قبح صورت ما وح أوديباتها وعالمك واركره مالها صارت waxyaalahan waxa markasta waxa jirta wax loo yaqaan tit fotat markii wadan ku dhawaaqa fulaan ay gabaxa wadankii uu ka yimaado ama dadkii taageersan qofkaas badana waxay sameeyaan laablakac sababtoo wadan laablakac sameeyana waa jiraan laakiin dawladaha badana waa isu soo dhawaadaan markii waxyaalahan ay sameeyaan hadana dib looga heshiiyaa
وهاجك مكون مقطع إن مدح بنانا الصومالية أي ولي شكل كجرتو runtii markii caalamka Soomaaliya dawladii siyaad bar markay burburtay ilaa imaanta yani waxyaalihii Soomaaliya ka dhacay iyo dawladii Soomaaliya soo caawiyay iyo shakhsiyaashii Soomaaliya dawladda Soomaaliya ama shacabka Soomaaliya ay si cad ugu shakisanayeen inay Soomaaliya shuuca ka wadaan ama ay isku dir ka wadaan ama Soomaaliya wadanka ka digaynin dawladaha dad ay soo direen sababtuma ilaa maanta qof oo dawlad oo maanta Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay si cad ay u tiri qofkaas hana faragelin sababtuma maanta ay bilaawad sababtuma taas waxay cadeynaysaa Soomaaliya wadanka waa inuu awood leeyahay tusaaladan ku sii baasaboorada Soomaaliya caalamka ma shaqeynayaan jaamacadaha Soomaaliya markuu qof ka dhameeyay markuu caalamka aado lama aqoonsana marka wadanka waa in caalamka wadan inuu jiro wax lagu fahmaya inuu awood leeyahay oo hadii uu wax u bogin oo caadi afku furan kara u dhayn kara fulaan wadanka iga bax waxyaalaha dawladaha ay lagu aqoonsada ay xoog ku yeeshaan ay kamid yihiin personal granta wadamada isticmaala wadamo oo awood leh wadamo maxaa lahaa oo xaqooda soo dhacsanaya sababta shakhsi ay wadan afgabin kara shakhsi ay wadanka dib u keen kara marka adiga hadaan iska qaban karin oo caalamkana ku ogol yahay qodobka inay isticmaashid maxaa ku diiday inaad ku dhawaaqdid maanta ay Soomaaliya meel fiican maraysa maanta ay Soomaaliya madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama baarlamaanka ama shacabka ama aqoonyahanada Soomaaliya ay awood yeelanayaan markii caalamku Soomaaliya u arka in qodobada noocan ay ku dhawaaq karaan أبد ما سنتهي قريقان ما سنتهي ولا شيء كاسوحوها قريقان حسين عبدي ملب أو مركاسي نقلا قيب قليل فلنقينتا وركب